qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa maayirka degmada Berbera kaga cawday inuu gabi ahaanba ka ceyriyay shaqadii ay ka hayeen dawladda hoose ee degmada Berbera taasoo ay ku sifeeyeen sifa sharci darro in looga eriyay shaqooyinkii ay ka hayeen gabi ahaanba dawladda hoose ee degmada Berbera iyagoo sheegay in xaqoodii laga siin eriga shaqadooda kadib waxayna baaq cod dheer u direen wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumadda Somaliland iyagoo ugu baaqay in si degdeg ah loo soo kala dhex galo maamulka iyo shaqaalaha shaqada laga eriyay waxaana warbaahinta la hadlay xubno ilaa 6 qof oo ku magacawnaa gudida shaqaalaha shaqada laga eriyay waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan ka bilaabay dawladda hoose seeska waxaan u shaqeynayay dhowr iyo 20 sano gudoomiyu sid maxaa xadaaf oo aan macquul ahayn buu noola dhaqmay xaqi iyo xuquuqdeedii nasiibaan ku dhigay markuu neeriyay una siin waayay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaan ku codsanaynaa inay maxay ahayd cabashadayada aan loo imanayno aan ku doonayno xaqi iyo xuquuqdeeda in aan ay si fiican wax noogala qabato horta waxa weeye ummadda waxa loo abuuray kala dambeyn iyo cadaalad anigu horta waxaan taageerayaa shaqaalaha 120 laga saaray ee 120 qoys la bariistiray dadkana waxa loo soo doortay inay wixii bilaa camal u sameeyaan ee inay 120 qoys bariistiraan looma sameeyo taas ilaahayna ma ogola waxa weeye waxa loo doortay golaha deegaanka in ay dadku wax u qabtaan waxaan leeyahay golaha deegaanka gobolka saaxil in uu yeesho waxa uu maalin ka aragteen be si dhaqso wax ugu qabtaan ku hadlaya anigoo ah gudoomiyaha gudida shaqaalaha 120 qof ka kooban ee laga eriyay dawladda hoose ee lagu beegay waliba iyadoo soo dhowdahay muddadii eedin may loo dabaaldegi jiray hay'adda shaqaalaha waxaan baaq u diraynaa aanu leenahay halana soo kala gaaro anigoo ku hadlaya magaca shaqaalaha leeri ee baleeri dawladda hoose Berbera gudoomiyaha Berbera waxa uu ku dhaqmay waxaan ku dhacay gudoomiyaashii hore maayirka Berbera wuxuu ku dhaqmay ayaaba soo hore waxaan walaal aniga maayirku waxa shaqaale qaran maamulkaygu buu ahaa in uu neeriyay ma xaq uma duuneerin xaqaygina lamu siin geesta kalena maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo telefishinka bulsho uu ku booqday xafiiskiisa waxna ka weydiiyay cabashadani ka soo yeelaysa shaqaalahani ayaa waxa uu maayirku sheegay in shaqaalahani uu shaqada ka ceyriyay ay ahaayeen kuwa ka kala shaqeeyay laba hay'ad dawladood dastuurka Somaliland aanu ogolaaneyn in qof muwaadin ay uu ka kala shaqeeyo laba xafiis dawladood oo siman sharciyo nidaam cusub oo loo dejiyay dawladda hoosena ay sababtay in laga ceeriyo shaqadoodii ay ka hayeen dawladda hoose ee degmada Berbera waxaana maayirku arimahaasi ka hadlaya hadaladiisii kamid ahaa waxaan aad runtii u mahad celinayaa wariyaasha kan maraya Star TV iyo Bulsho TV waxaan uga mahad celinayaa systemka iyo nidaamka iyo anshaxa warbaahintu ay leedahay inay qof kasta raadkiisa iyo xuquuqdiisa ilaaliso aad garateen man aad ugu mahad celinayaa mar haddaad ka dhageysteen kana dhageysto sida awgeed dadkan meeriyay ee aadamka soo wareysatay waxay u qaybsadeen 3 qaybood 3 qaybood waxa weeyaan waa nin laba kaadla oo qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo dhigayo sharciga shaqaaluhu inaanu qofku laba hay'adood oo dawliga aan wada shaqeyn karin marka waxa kamid ah qaar dekada ka shaqeeya qaar kaadi biyaha ka shaqeeya qaar cashuuraha bariga ka shaqeeya qaar meekala ka shaqeeya oo gabanay markii hore waxaan dawladda hoose yimaadaan inta saxaan dawladda iska tagi jiray waxa loo sameeyay system shaqo lagu dabagalo agaasim ku dabagalo shaqada xaqad ka shaqeysa halkan soo gal shaqada noocaas qabo haddii markaa shaqeysan waayo deema on time noqon waayo waxa la doonayaa inuu soo galo 7 laba duhurnimo ka rabo shaqada sida shaqaalaha kale caadiga ah oo deendiyiti ahaado marka laga waayo ee la xaqiijiyo gudiyaan shaqo markay soo cadayso laga sii deynaya qofkaas waa qaranka dhimaa uu khiyaameeyay waana ku nimka cabashada sideetid ee camanayay kamid yihiin waa la garanayaa hebel weeyaan waxaan jeclaan lahaa waliba inaan face to face soo fadhiisano dabeedna aan ku cadeyno tusno umada u sheegno in qofkan qaranka la khiyaameeyay Khalid Xasan Kharash telefishinka madaxa banaan ee Bulsho TV magaalada Berbera.